ila waraajyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay warbaahinta islaamiga Al-Furqaan u xaqiijiyeen in Xasan Sheekh uu qorsheenayo inuu safar ugu ambabaxo dalalka Tanzania iyo Turkiga oo ay u kala degan yihiin labadiisa qoys. dowladaha Turkiga iyo Tanzania ayaa horay ugu ogolaaday inuu dalalkooda ka dhisto guryo kadib markii ay dhaqaale aad u badan ka qaateen. waxaadna moodaa in markii uu tallaabadan qaadayay uu garwaaqsanaa Xasan sida aysan macquul u ahayn in uu dalka ku noolaado maadaama uu og yahay dakanada uu ummadda ka galay iyo sida loo dondoonayo. madaxii ugu sareeyay xafiiska madaxtooyada ayaa isagana ku wajahan Mareykanka oo markii hore ka yimid, halka ku-xigeenkiisa la sheegayo inuu doonayo inuu dib ugu laabto hay-adda WFP oo uu horay ugu shaqeynayay in ka badan 10 sannadood. madaxii habmaamuuska ee madaxtooyada Xasan Sheekh ayaa isagana la tilmaamayaa in uu dib u degi doono dalal ku yaala Yurub, halka madaxii warfaafinta ee madaxtooyada oo isaguna ku wajahan yahay wadanka Koonfur Afrika. tani waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay qabyaaladda iyo jaahiliyadda ay ku dhaqanto dowladda, waayo caalamka kama dhacdo in haddii madaxweyne la bedelo lala eriyo shaqaalihii madaxtooyada. waxaana ugu wacan iyadoo uu madaxweyne walbaahi marka uu cusub yahay uu keensado dad ay qaraabo yihiin, isku mabda'na yihiin. waxaana taa ka sii daran in nidaamka noocaasi ku dhisan ay dadka qaar ugu yeeraan dowlad Soomaaliyeed. madaxweynaha xilka wareejinaya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xogtu sheegaysa in uu 6 bilood kadib dalka dib ugu soo laaban doono maadaama uu yahay xildhibaan tan iyo inta uu nool yahay, sida ku qoran qodobka 64aad faqradiisa 4aad ee dastuurka shisheeyuhu dhiseen ee ay dowladdu ku dhaqanto kuna bedeshay booskii kitaabka Qur'aanka Kariimka. si kastaba ha ahaatee ee dhammaan madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaareyaashii dalka soo maray ayaa waxay caado ka dhigteen inay dibadda u cararaan kolkii xilka laga qaado. madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaana ahaa madaxweynaha kaliya ee markii uu xilka ka degay aanan marnaba ka bixin wadanka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan xilka madaxtooyada wareejinaya isagoo aad u dhaleecaysan ummaduna ay aad u nacab tahay. xaaladaas uu maanta ku sugan yahay ayaa waxaa markiiba